halgan raadiyo baaq nabadeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Hirshabeelle mudane Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo ay weheliyo xildhibaan Cabdisamad Wabar Axmed iyo qaar ka mid ah odayaasha beesha Baagacada ayaa kulan magaalada Muqdisho kula qaatay odayaasha beesha Kaboole. Kulankaas ayaana diiradda lagu saaray dadaalo lagu dejinayo xaaladda amni iyo nabadeed ee deegaanka Iji oo ku yaalo xadka labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, halkaas oo ay dhawaan dib ugu soo cusboonaadeen colaad u dhaxayso beelo walaalo ah oo dega halka. Mas'uuliyiinta iyo odayaasha kulanka ka qayb galay ayaa isku raacay in la dardargeliyo wada hadallada nabadeed ee lana xoojiyo kaalinta hoggaan ee dowladnimo iyo dhaqan. Halkaas ayayna baaq nabadeed kaga direen odayaasha iyo xildhibaanada halka ku shiray maanta. halka uu warka idiga imaanayo waa halgan raadiyo. Wixii warar ah oo ku soo kordhana waxaad kala socon doontaa